kulan loogu hadlayay arrimaha siyaasadda ma aha kulan loogu hadlayay lacagta duugoodii ma aha kulan loogu hadlayay sida loo dhisi lahaa qoys jaceyl ka dhisan ama ku dhisan kulan waxaa la qabtay sida loo dhisi lahay ka hadlaya qoys jaceyl ku dhisan maasha allah qoys hee jaceyl ku dhisan waxaad naf kale ku kasba kartaa nafsadaada waxay naf kale ku kasba kartaa waa jaceyl xoog ma aha hirig ma aha been ma aha turufo ma aha been turufo af soomaali khataato waa laga daba imaha wax walba waxaa fiican daacadnimo iyo jaceyl in qoysaska soomaaliyeed lagu dhiso in hadda jiilka soo koraayo ee raba inay mustaqbal samaystaan waxaan ugu digaynaa ama waxaan ku waanihaynaa ama waxaan ku boorihaynaa qof walbo qoys dhisaayo oo naftiisa raba naf kale inay nolol la qaybsato been iska ilaali been iska ilaali been waa lug gaawan tahay been hee waa lug gaawan tahay abo gabadha soomaaliyeed been ha u sheegin haddii aad rabtid waaye haddii aad rabtid meelaad ku hooyatid ku harsatid ku qaboobsatid ku waartid owlaad khayr qabto baari ah inaad heshid aawo been io beesobe wax lay haleeyaan been io beeso wax badan ay haleeyaan howl weyn ayaa dad fara badan soo buuxiyey meesha lagu doodayey oo barnaamijkaas lagu qabtay waxaana soo diyaariyey dhalinyaro maasha allahu oo la magac baxeen gurye samo dhalinyaro soomaaliyeed oo la magac baxday gurye samo ayaana barnaamijkaas soo abaabulay ama soo diyaariyey maabo khatar waraa idinka wallahi khataraa tihiin idinkana naftirkiina barnaamij weynaa soo diyaariseen warkaana waxaa inoo haaya waryaheena abbahaa ku soo dhawaaw awow waxaa la qaban jiray sida aad og tihiin kulamo xasaasi ah kulamadaas oo dhowr weji leh waxaa ka mid odayaasha dhaqanka markii kulan ay qabsanayaan oo ama dowladda lagu mucaaradayo ama dowladda lagu ammaanayo waxaa kaloo arki jirteen dad macallimiin oo isku tageen oo duqooyna ay ku dhex jiraan mar kasta duqmalay waa inay kulankaas dhacaya laakiin kulankan hadda dad aan ogahay ay qabteen magacna ay u bixiyeen wuxuu ahaa kulamadii hore soomaaliya lagu samey jiray ka duwan taas oo keentay hal oday horta inaa laga waayaba kulanka wax duq la dhahayo iyo duqda la dhahayo maba lagu soo darinbo meel la kala istaaga la waay dadka ka soo qayb galine wada doob leh waayaan ku dhahay maxaa keeni kara maxaa laga hadlaya wixii laga hadlaya haddaan ii sheega war su-aashan su-aal kalama waxa waaye sidee ku kasba kartaa qofka aad jeceshahay iyo qofka ku jecel sidee u dareemi kartaa ood u fahmi kartaa jaceylkiisa wax kastaba waxay u daran macalinkoo meesha ka hadlaya waxaa dhehaysaa jaceyl socda miyaa u soo dhan jaceyl ma lagu jirjiriyo lagu soo jajawiyo saan loogu naqda hadaladiisana waxaa ka mid ah ila fiiriya qodobaan u baxshay baa jira 10 tiray xulashada koo waxaa ka qofka in la eego diintiisa qofka wuxuu aaminsan yahay inaad iska fiirisid labo waa in aad dabeecadiisa si fiican u barataa waxyaabaa dabeecadda qofka lagu barto waxaa ka mid ah inaad fahamsan tahay qofkan caadifadiisa say tahay miyirkiisa dala socodkiisa ixtiraamkiisa ixtiraamka ra'yiga ixtiraamka hadalka ixtiraamka ku dhageysanayo ixtiraamka xididka ixtiraamka gogasha intuba ixtiraam bay u baahan yihiin waa in qofku fahmo qofkan ixtiraamkiisa waa inay jirtaa waxa la yiraahdo sabir waa in qofku sabir leeyahay oo qofku markii wax dhex maraan qof iscelin kara ama adiga ku saxi kara markaad khaldanto waa inuu noqdaa oo adiga ka samir fiican qof adiga ka dabeecad xun oo inaadan gursan oo ka samir liita
وكلن كان وعسو قبن خابي دلنير لدهو غوري سمو وحلي كشخيان أفر إلا واتنك سعسيل اسكو فوري لهاني سي دوتو إماله نينكي إناكتي اسقاو دادكي اسقاد قادا إن عروس وقاري لهان اوات دلان سي زين الله قلي لهان وحيك فكران سي نينكستي إناك كستو اسرابان جاقا تقصيل إدرق دقحلاوها كل جوان سي اسكو كين لهان مغحوطا بك فهميسين وحالا دها غوري سمو warwiil ii gabar oo sheekada jaceelka meesha ka socotay Titanic waa laga daran yahay jaceelka markaas jiri laga hadlayay macalinka jaceelka ku dhamaadina as qodobba u sinaas akhri barnaamijka waxaan ka faa'iido oo ah xulashada guurka wali waxaan taaganahay xilligii maxay ugu muhiimsan sababtoo ah waxaan ahay ardaydii ka soo qalin jibisay sanad hore ee jaamacadaha wali aan guursanin rajeenayo mustaqbalka inuu dhisto waxyaabaha aan seminaarkan ka faa'iiday oo soo xaadiran waxaa ka mid ahayd inaan fahmo habka xulashada guurka iyo habka ay dadku isku doortaan si loo abuuro guri aad u qurux badan